wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda Maxamed Saxardiid Cadaani oo socdaal maalmihii ugu dambeeyay ku joogay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer kaasoo socdaalkiisana ku watamay xogagaal noqoshada xaaladda guud ee ku sagan yihiin bulshada ku dhaqan gobolkani Togdheer ayaa maanta booqasho ku tagay goobo ganacsi oo dhawaan uu dab ku qabsaday bartamaha suuqa magaalada Burco wasiiru dawlaha ayaa waxa socdaalkan uu ku tagay goobahaas uu dab ku qabsaday ku weelinayay barasaabka gobolka Togdheer mudane Maxamed Muuse Diiriye isuduwaha wasaaradda Maxamed Jaamac Sawayne ugu horeyntii waxa halkaasi kala hadlay wafdidii warkacay wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer Axmed Cali waxaanu yiri tankii bishii 2014 ku shufeelay 12 meheradood oo nooc walba leh bacadlayaal leh hogaal leh macmacaanayaal leh ilaa kariyoolayaasha kaboolayaasha iibiya 12 meheradood bay ahaayeen خسارهنا وحول لما موت كاهي هوسي اللي مهرضها اللبية لحيا فرطة كلية فرقولية $100 كان عصفة قبل كتقدر أن آذي عادقوا مهنا قيو مدلح عشاء وحيكو صوريا لحق عريسة طبيعي صدنا كوني يستيقظ بقولية $4 أو ديغان بقول كوي سديتر لعقتي دقاليه كوب بتيماشا آذي عادوا مهسيين كان عصفة قبل كتقدر لما أنت وحلوين iska saartay hawsha waxa iyaguna sidoo kale dhankooda la hadlay mas'uuliyiinta halkaas ku soo booqatay gudoomiyaha gudidii loo xil saaray khasaarihii dhawaan ka dhashay dabkii ka kacay bartamaha suuqa magaalada Burco iyo dadweynihii uu khasaaruhu ka soo gaaray dabkaasi 12 qof ayaa ka mid ahay gudoomiyahoodii salaamaya in madaxda halkan joogta maanta يا أركتي إن قرأتي إن ما تماضو ونبتنا قاعدي إن عندنا كسمايا لما أنت بدأت كرر سمالا وين مهتين أدوي مهتين سوى عم بين الله شقيان حقول وين بينهم موتية وحين للسيء برسلت بقول كيف سديت مالا للسيء وحين لما نروح لذيك قاعدين كانوا ذكر تيرين وذيك بدي صباح الصارتي اللي بحس نوصل بتي اللي بحس أنا عاوزه ugu dambeyntii wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo barasaabka gobolka Togdheer iyaguna geestooda hadalka iska daba qaatay ayaa ku amaanay ganacsatadii kala duwaneed ka qayb qaadatay gargaarka dadkii khasaaruhu ka soo gaadhay gabi ahaanba hantidooduna ku baaba'day waxyeeladii ka soo gaadhay dabkaasi waxaan aad iyo ugu mahadnaqayaa ragii baa mushtarka horta rugta ganacsiga waa Axmed Cali ka madaxda yahay iyo gudida ganacsatada ee hawsha runtii qiimaha iyo qaayale maxaan ku ka qayb qaatay waxaan u mahadnaqaynaa kuwii gaar ahaan ka qayb qaatay dhismayaasha ee wixii qalaba ee lagu dhisayay ku deeqay ee geliyay waxaan u mahadnaqaynaa waxa kuwa maxaan ku raadayay $37 ee la soo ururiyay kuwii lacag ahaan uga qayb qaatay ayaan maxaan ku raadayay ayaan u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa kuwa dhismaha ka qayb qaatay ee volunteerska maxaan ku raadayay meesha la shaqeynaya waxa dhiman waxa weeye 80% in ka badan baa ayaa la qabtay waxa dhiman waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan dhameystiro ganacsiga ee Soomaaliland oo hawshaasi ugu ka ahaa gudida ganacsatada ganacsatada ku tabarucday ee ku deeqday in ay aafadaasi ugu dhacday wuxuu ahaa gacan ka geystaan aad iyo aad ugu mahadsan yihiin ugu mahadnaqayn si kastaba ha ahaatee dhibaatada dabku u geysanayay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Togdheer ayaa maalinta ka dambeysay sanadihii ugu dambeeyay si soo taraysay taas oo ay waxyeelo badan ka soo gaadhaysay dadka ganacsatada ee dayarta iyagu ku maareynaya nolol maalmoodkooda oo aan ka soo kabanayn dhibaatada uu dabkaasi u geystay waa Barwaaqo Aadan Maxamed shabakada caalamiga oo Odweyne News magaalada Burco.